Okay. ما قال صوبت every time الله بلاو إلا ظل صوبها. And okay, let's share the screen إن شاء الله. Okay, عندك. أنت إيسا أنا هذه أنت يجيك هذه أنت okay. Now you can see the message in نقلية but ما في رينك مرمر. إن شاء الله تكون دينا بالله ما يستكن بس أنا مركز. أوكي liquidity ده أول حرب إن كديو لابلاو فيديو أنيقو كحلايو أبرنا عن كل قريب شيء. No, just wait. Don't touch it for now. Okay. Close it and close it. Okay. liquidity ده أول حربين أو قيبيو أفر قيب يبقى سيهين مركز لها أول إلى كسمين أفر فيديو أما لو فيديو هذا الكل حسنا حب سماه أو لايف كدمنا هذه بحر إيران liquidity مرة كلا كهذي بس هذا في يوتيوب حواي وحبه أو مركز ديتا أما عصب منه وصوشو so waxaan weyn kula qaybiyo afartan nooc tan koowaad midda la yiraahdo structure-ka waxa la structural liquidity oo liquidity badanaa dhacdo suuqa inta uusan sameynin reversal. Okay, midda ka labaadna waxa weeyaan midda la dhaho inducement macnaheedu waxa waaye inta waxa ku yaalo demand suuqu intuu imaan miiba la yaab inuu taabto uu baxayaa waxaas leedahay uu baxay suuqi and then mablaw suuqi inuu kusoo noqdo meeshii and then silkiisu kusoo socdaa marka waa touchka koowaad badanaa waxay taabataa higher time frame. For example hadduu 4 hour if 15 minutes uu ka dhex jiraan kan 4 hour kay soo taabanaya camal way soo dhacaysaa haddana waxay kusoo noqonaysaa kii 15 minute ka refineka ku dhex lahaa ayay kusoo noqonaysaa. So inducement waa badanaa touchka koowaad ama marar qaarkood qasab maaha inay taabato way u dhawaataa keliya. So waa waxay u badan tahay hal jeer camal inay saan samayso amase marar qaarkood waxay samaysaa laba jeer camal laba jeer camal saas u samayso iyadana way dhacdaa. So tanna waxaa la dhahaa maxaa la inducement. midda saddexaadna waxa weeyaan midda la yiraahdo liquidity pool waa dadka market structure-ka ka yimid oo lagu dhex jiro wax kale maaha aanan ahayn liquidity pool hadaa maqasho waa ascending channel ama descending channel. So macnaheedu waxa waaye suuq order flow ku socday sidaan u socday marka waxaan dhulaa dhow waxay noqonayaan liquidity inta soo baxa marka waxaa waaye xataa meelo ay ka sameyn karaan flibyada aad ka qaadan kartid hadhow entry waxaasayto amase markii ay aad u badan yihiin oo meesha dhan ay tahay messi in hal mar la wada qaadaa macquul oo 90% lagu tago sidaas ama lagu jabiyo hadduu hayga yahay targetka. tan waxaa la dhahaa liquidity pool waa ascending channel keli oo 90% dhulka aadaa dadka market structure ka yimid ugula jira meesha. tan afaraad iyadana waxa weeyaan midda la yiraahdo waxa ama imbalance gap ama liquidity gap liquidity box waxa uu yahay cid walba magaca kugu yeelaysaa laakiin wax kale ma ahayn suuqa
wuxuu sameynayaa wuxuu ka yimid probably meelahaasayto wuxuu sameynayaa wax camal ah hoos buu aadayaa and then wuu soo noqonaya marka haddee meeshaan eber tahay chanceka in uu adiga supplygan aad ka sugaysa inaad wax ka qaadatid chanceka inuu noqdo asaga liquidityda oo intii la qaado hadhow lagu soo noqdo ayaa macquul marka afartaas waa suuqaan ka dhex raadinaynaa insha allah waxaan soo sawiraa markaan live-ka dhameeyo waxaan sameynaa sawir oo aan soo gelinaa insha allah telegram so let's start waxaan ka bilaabaynaa tano structureka okay so jeclaan jirnayo my favorite place this is a perfect way kala duwantaa way kala foolxuntaa so that's not maxaan dhahda kusan per se laakiin iyada weeyaan so for example suuqaaniid wuxuu ku jiray wuxuu soo aaday silsama so waa inuu soo noqdaa probably impulsive waa from here impulsive waa from here to here so marka maxaa waaye marka suuqa waa inuu noqdo oo 50% ku noqdo so inuu ku noqdo order bloganito supply ganito andano ama se inuu aado kan ka koreeyo inta it depends so meeshan kusoo taabto waa in uu kusoo noqdaa oo maxaa la dhahaa order block markuu order block u soo dhow yahay dadka waxay rabaan waxa weeyaan liquidity ay cunaan hadday meesha tagaan oo ay soo noqdaan lacag ma cunayaan so waxa la cunayana maaha adigii aniga waxa la cunaya waa bangiyo iyo hedge iyo oo aanan lahayn awoodda institutionada iyo bangiyada iyo hedgeyada waaweyn waa kala weyn yahay marka waa the bigger fish eats the smaller sama صحاح مرة بو حوار ملايقة وين كان كيرو عنيا سو مركي محو سمينيا سوقا وحي اسكو دايان مركي اي ماشي اي مادان اي وحي اسكو دايان دادك اني سالو ديران سو ساني سمينيا قفا انت ماشي سالك سوقلا حدا ساهم سمينا سالكلا لغا سوقلا حدا ساهم سمينا سالكلا لغا سوقلا كوانا باي وقلان كوانا مركي ماشي انا بحسنيسو سو مركي محادا عايا مركي كوان سالك اسوقلا لعنو waxaa kaloo meeshan yaala dad dhahay haddii meeshan la jibiyo aniga bayan u qaadanayo so marka waxaa lasaga dhigaya wax oo retest isa sameynaa oo sii soconaya camal waa iyagana waa lasoo aruurinaa so groupkan waa groupkii stoploskii oo bayga kuwii bayga u galaya groupkan waa groupkii salka u galay so stoploskii melanu yaalaa kuwa kale stoploskii melanu yaala so waa la cunaa kadib xooga lagu soo baxaa waxaa la cunaa kuwii bayga u meelaan uga galay marka meesha maxaa ka dhacay reversalkii waa change of train maxaa la dhahaa waayo shaqadii ay ka rabeen liquidity way dhameeyeen marka way noqonayaan order bloggi ay wax ku cuneen oo u furan bay soo qaadanayaan way soo daadanayaan marka marar qaarkood order bloggaas maxay ku xiran tahay hadday extreme-ka tagayaan marar qaarkood waxaa leeyahay meeshaas tegin oo markii ay meelahan marayeen in ay meeshan ku sameeyaan for example inay ku sameeyeen decisional wax ah ama intuu uusan soo jibinin haddana kuwo kale bay u direen kuwo kale soo direen oo markaaseed order bloggi intii ugu dambaysay isaas ku cunaan meesha waa isqiyaama so something like that dhacayso marka haddaan inta u fiirsano marka maxaa dhacay waxaa dhacay waxaa tuma jeedin kuwaan dhan kuwaan oo groupkana la soo geliy groupkana la soo geliy groupkana la soo geliy haddana inta marka lajo groupkana la geliy groupkana la geliy groupkana la geliy groupkan so zoonkan dhan ayaa wuxuu yahay liquidity socota oo u baahan in la qararmsado marka maxay hal mare marka waxa aadayaan push markay pushka aadaan ayay waxay soo cunayaan wixii liquidity-da meeshan yaalay meelahan waxay iska dhigayaan wax oo haddii intuu dadku u taalay dadweyne waxaa laga yaaba meelaha inay u taalo support iyo resistant ugu bangiya ku shaqeeya waxaas
so support and resistance meelaha unta markii waa la cunaa waxay isleeyihin oh bay waa retest yaraa lagu soo sameeyey soo mjeed andana wax baa ayaa lasaga dhigay so waa soo wada galeen stop lossyada meelahan buuxa qarram waa la soo cunay stop lossyadooda maxaa kaloo la cunay kuwii meeshaan fadhiyey kuwii zoonkan fadhiyey stop lossyadeedana waa la cunay soo mjeed suuqa markuu noqonayaa inta maxaa ka dhacay marka inta waxaa ka dhacay flip waayo suuqa meesha reaction uu ka bixiyey flip lagu sheego waa supply ama demand fail garoowe aan wax push gareen okay demand kasta iyo supply kasta shaqadiisa waa inuu wax push garaya waayo waa isbaaro dad u taalo bangi ama waxbaa isbaaradaas u taalo meesha in laga hoos maro marabaa badii laga hoos maro iyagaa la cunay waa so they will try to push back as much as they can so ku kala awood badina wax u kala push gareen karaan marka waxa laga yaabaa meesha marka inuu lagama yaabay meesha flip ah ku jiro if you check here let's cut a little bit internet meesha waxaa ku jiro 15 minutes ka daan dagno waa la arkayaa samjeedi meeshan kanayto ilaa inta yimid inta ujeedaa meesha markii zoonkan yimid reaction kasta laga bixiyey so reaction kan dhan wuxuu noqonayaa supply kaaseeto marka waxa laga yaabaa inaadan taas arkin oo extreme ka sugaysid sababta waxa laga yaabaa extremeyada dhan soo jeedi kan waa soo cover gareeyay kanaytana waan soo cover gareeyay so ma lahan imbalance ma jiro meesha so imbalance meesha ka bilaabana soo jeed nadiif yihiin meesha laakiin kandala badan blue ka buuxo macnaheedu waxa lagu noqday waxba la soo xirxirtay so kan ugu dambeeya uu furan kan waaye wakaasaytay markaan mar inta u yimaadaan shalta baagan ka hoosay xataa inta kaasaytay inta u yimaadaan ayay waxay sameynayaan kaas ayaa lagu soo noqonaya marka 4 hour ku joogto meesha waxa leedahay waa clean laakiin week miran waa soo jeedi so macnaheedu waxa waa la soo buuxshay inta daa fiirisid imbalance male video imbalance ah inaad fiirsateen inta daa u fiirisid meesha needo waa ever imbalance ma soo jeedi haddaan inta u dhigo line kaneeto inta ka qaada inta u dhigo waa soo buuxsamay the same thing inta wax yara ku jiro inta ilaa inta ku jirto inta la ku jirto like 15 minutes ka daa tagtid waa la soo wada buuxiyay so jeedi they are not as clean as they are waxa structure ahaan loo soo buuxiyay loo soo buuxin imbalance ahaan structure ahaan maxaan ka wadaa waxa dhihi jireen breaker oo dhameemo so suuqa saanu sameeyay uu noqday saasuu sameeyay so jeedi so kan iyo kan ayaa isa soo xiray ama dawbad wax yar ayaa furan marka wax ma ahan oo kana ugu nadiifsan so adi marka 4 hour joogto waxa laga yaabaa inaad taas arkin laakiin markaas amal loo ritaama badanaa la tagaa hadaaba aragtid meesha inay saan tahay ama meeshan ito saa amal oo meeshan week hadaa ku aragtid waxaa ku jira imbalance so hadda marka order block u dhiganaysa you have to know where is the cleanest anyway kan oo u dhigan kartaa because string is always point ugu soo noqon karo so marka suuqa meeshan ugu soo noqday waa sii daatay order blockooda ugu dambeeya u furnaa waa sii daatay laga yaabaa xataa kaas inuu weli u furan yahay laakiin biri kamaan u soo noqonaya so structure-ka markii lagu leeyahay waa noocaas waxay waa Wyckoff lagu sheegaa Wyckoff iyo Wyckoff waxaa kaasayto haddaan maqashid waa the whole concept of Wyckoff waa that so concept waxa waaye dadna in la soo geliyo so waa very manipulative that's always so you have to stay away that zone wait in la jabiyo markii la jabiyo boom haddii liquidity dhacdo waa oo kor loo jabiyo hoosna waa loo jabin doonaa waayo kuwaana in soo qaramsado waa caado jirta weeyaan taas so marka waan soo wada fiirinayna anagoo figoon isu waaleynin inta maxaa ka jiro order block right maxaa ku jiro
order below intana meesha waxaa ka buuxda liquidity marka inducementka lagu sheegayo waa structurekii oo hal ama laba leh un badnayn okay laakiin si fiicanaa loo dhaqaaqo so kuwo kala hoostooda kasii buuxsama wada qiyaama so hadaa fiirisid waxaanu liquidity maxaa lagu sameeyey waa la qaaday soo majeed waa la qaaday kuwaana maxaa lagu sameeyey waa la qaaday so kii bayga iyo kii salka waa la qaaday waa lagu soo noqday inta ayaa laga qaatay probably hadday meeshan ka qaateen order blogger waxaa ka dambeeyo for sure haddaan 15 minutes ka tagno wax nadiif ah no for alkeen uu socoli skat kaliya 15 minutes jananagay waxaan soo fiirinaynaa zonka aan rabnay hadduu nadiif yahay haddii ka so saa u jeedid inta kaneetaaba waxa dhan qaseen so meeshan waxaan dhan wax nadiif ah kuma jiro somjin wax nadiif ah kuma jiro meesha ugu soo horeyso oo imbalance ka jiro waa intaas so to me hadda aniga haddaan u dhigan lahaa waxaan u dhigan lahaa intaa okay waayo meeshaas an imbalance ay ugu jiro laga yaabo futureka inoo soo noqdo inta laakiin haddaa fiirisid maxaa la dhahay probably waxa dhan waa wax lasoo wada cunay kaneed wax yara kaliya furan so kanay kasoo noqdeen so anikan maga qaateen kaasaan ka qaadan lahaa so tradekan waxaa laga yaabaa in uu ii imaan lahayn meeshaan ka sugaayo for example laakiin waa 4 hours so that's another story okay waxaan fiirinaynaa haddana this one too is another one so imagine inta maxaa ka dhacay kan adoon into success waa in this one waxaan raadinaynaa meelaha waaweyn oo dhan meelahan inta fiiri kan camal anda fiiri marka structural liquidity wuxuu u samaysmaa dhowr nooc oo kala duwan okay wuxuu u samaysmaa sida tan right bom wuxuu kaloo u samaysmaa sida tan bom wuxuu kaloo u samaysmaa sida tan bom wax kooxan bom wuxuu kaloo u samaysmaa the opposite oo ah isagana sidan bom wax oo like round camal ah tan so dhowrkaas nooc u samaysmaa kuwa kaloo kasii foolxun laakiin marba haddaa artid group kandallo isku wada yimid oo kalar kasta leh you know something is off so inta marka ujeedaa nooceen samaysmay meeshaan eito waxaad samaysmay noocii jelka camal ah so oo sidan tan u socdayso meeshii waa la tegey taana loo socdaa dhan bum lagu kala tegay so inta maxaa ka dhacay marka waxaa la qaaday groupkii kore dhan waa la qaaday so ama saan u dhigataya waa laga qaadaya waxaa kaloo la qaaday groupka hoose soo jeedo groupka hoosena waa la qaaday kadibna suuqa dejisanalkaneetu kasoo baxay dejisanalkan muxuu ka helay flip isagana agtigiisana wuxuu sii noqday loo baxsii kala dira so this maxaa dhahay the liquidity so marar qaarkood wuxuu dhaca kartaa the opposite maxaan ka wadaa the opposite suuqa reversal kaliya muu dhac wuxuu dhacaa hataa hab oo continuation ah it's very strange suuqan saluu ku socdaa ku dhahaantiisa sooma marka muxuu sameynayaa this high time frame camal ka dhacaya so intuu saanu ku socona waa la qaada maxaynu niri anaga liquidity mar haddii tan hoose la qaado chance intan kor la qaadan is very high so tanaa la qaaday tanaa la qaada waa la sii socdaa marka waxaan is leedahay uu reversal a dhacay reversal ma dhicin just liquidity soo socdeen hadday continue haddaa fiirsan salki uu ku soo socday sanadkaneeta oo dhanna dhowr jeer waxaa sameeyey hadda tanaa ka kow maxay samaysay tan waxay samaysay waxaanu liquidity
waa high time frame weeyaan. So maybe in high time frame ka tago daily. Okay, maxaa dhacay inta liquidity soo jeed meesha liquidity waan so maxay sameeyeen liquidity qaadeen kore imaadeen so tii hoostana meeshan hadaa fiirisid aan kala baxsho si fiican uga aragtaan liquidity dan waa la qaaday so this whole thing am usin aan kula adeeg jirta liquidity dan waa la qaaday maxaa kaloo la qaaday liquidity korena waa la qaaday soo jeed taas micnaheeda maaha suuqa inuu kala fireeyey okay micnaheeda waa suuqa inuu kala fireeyey u buy aada structure muu dhacda kaliya reverse continuation sidaa camal ay u dhacda haddaan fiirino fiiritan hadda liquidity dan maxaa dhacay meeshan liquidity ka dhacda soo jeed liquidity markay ka dhacday maxaa lagu sameeyey waa la qaaday tii hoose markii la qaadana maxaa la sameeyey tii korena waa la qaaday laakiin meel dheer suuqa ma aadin demandigi ugu horeeyey ee ka hor yimid ayaa suuqa soo tuuray soo ma jeed supplygankooda soo tuuray so tan camal ma ahan boss you shouldn't consider it as a boss haddaa aragtid lacagtii oo selka u socotay oo hal mar bilaawdo inay isgurto qaada tikora la qaada miyo demand meelaha ku jira la taga waa la soo daadana so is some sort of a boss laakiin boss kan waa liquidity boss waxa sameeyna so hadaf uu leeyahay waa more like in is'alada lagu cuno than actual boss ka gadaa ka bacdi uu dhaca boss ka soo jeed ka bacdi uu dhaca so anyway raadinaya liquidity oo dhan iyo meelahan hadda fiiri taneeto waxaa laga yaabaa high time frame ahaan annaga inaan waxba dadkan qiimo badan aan ka arkaynin laakiin haddaad timaadid 4 hourka actually waa 15 minutes maybe 4 hour waa noocan liquidity dadka aad ma ahan waa liquidity tartiib loo qaada hal mar aan isku qaaday مثلا so for that imaado aniga marka 4 hour 15 minutes probably 1 hour yes so 1 minute that imaado maxaa u jeedaa in meeshan inta liquidity dan la qaado soo jeed markii taa la qaado waa la soo noqday tanna waa la qaadaya so tan waa isku jir xataa soo jeed iyadan waa la qaadaya so choga ma dhacay ilaa liquidity daas la qaado liquidity inta la qaado inta laga qaado liquidity maxaa la choga intuu ka dhacay sorry kan chogan waa 15 minutes like choga oo time frame ka seeta aad ku jirtid waa kan waa kii lower time frame kan waa change of trend choga actually the decision of the dambeeyay laga soo dhaafay okay so like markaad joogtid maybe for higher time frame waxay ogtaa si ka duwan sida u baranay oo inay ku socoto oo ka duwan because markaad saa u jeedid waxay ogtahay market structure da kana 3 touch macnaheedu waxa waaye liquidity kiskisaa loo soo qaadaa tan hoose lama qaadaa hal maraa markuu isku qaadaa wixii hoos oo dhan so haddaa low time frame joogtid this become your structural sukan kala baxshay si uu aragtaan haddaa joogtid higher time frame structural maxaa lahaa liquidity da tanay noqonaysaa laakiin haddaa fiirisid tanaa la soo cunay tii salka ma la cunay waa maya haddana lacagta way baxday liquidity kale dhistay haddana tanaa la cunay sama tii si hoose ma la soo qaaday waa maya haddana maxaa la sameeyey tanaa la cunay hal maraa marka waxa dhan la isku soo qaado soo ma jeedin ugu dambeyntii waa lagu qarmsan so
waana qabanaysaa. So saaseeto ayay ku dhacaysaa. Waa hayirtaan frameworka u fiiriso. Laakiin markaan 1 hour ka tago maxaan u jeedaa structurekaas inta keliya. Waayo meeshaan ku jiro dhammaantiin. So they fill it with SL. So kuwii baygaa la qaramsana. Laakiin kuwii salka dhan ay ka buuxo. Kuwaan waxay isleeyihiin suuqan waxa waaye meeshaas ku tagaa. adduun qaramsana waxay xisaabanaya as usual. markaasaa la qaramsanaya. soo ujeeda in taxta way ku jirtaa tan waa structural liquidity. So now waxaan fiirinaynaa maxaa la dhahay maxaynu niri structural inducement and then maxaa la dhahay tii kale. So inaan supply iyo demand waxaas warno. So yeah. Right. Okay. So let's do it. badanaa waxay ka dhacaan bulbaagyada u badan yihiin dan impulsiveka. So waxaa rabaa iyadoo keligeed tahay iyadoo waa nooc min structurekii laakiin aan badnayn hal xaboo si fiican loo soo dhacay. markaas camal waxaan soo qaatay waa bigger fish. waayo annaga ma awoodno suuqan inaan wax u dirno sal fiican. aleeba markaan anagoo millions aan galno inaan intaas camal durjino suuq. laakiin dad waxaa jiro oo billions, you know, 1 billion ama 2 billion high. Then they are big fish for us, and they're not that big considering that institutional trillion over jiro. So you know sida loo kala weynaanayo from billion to trillion. marka dad waxaa jiro markii meesha 4 hour ka amin imaado boom markaas soo dirayo and then waa lagu noqona. Okay. waxayna ka dhacdaa meelaha oo demand iyo supply ku kala yaalaan. I'm trying to find it clean up before I go. clean up. This 15 minutes probably in a 15 minutes. demand pattern. Yeah. So انت maxay yeelan aniga maxay yeelo demand, right? مشان demand yeah. demand intana maxay yeelo probably let's say this one yellow supply. So suuqa marka inta zonka range ku jira soo so waa impulsive pullback. So range ku jira marka range marka ku jira maxaa dhacaya suuqa maxaa la sameeyay marka before suuqa tagin taas dad video ka sameeyay waa actually range ama pullback intuusan u dhaqaaq impulsive-ka kala gelin waa inuu supply-yada iyo demand-yada aan mitigeedka anoo soo qararbsado. markuu impulsive gala waxaa xabad ama laba inuu ka tago laakiin inta kale uu soo qararbsado wax uu durduriyo iyo wax uu reaction ka bixiyo fail garoobo iyo wax oo maarta uu ka dhaqaa intaas uu kala baxaya. So hadda marka maxaa dhacaya suuqan kan حتى انت ممكن كان just to give you an example weakness لنوري no presence سوقا محسن سوقا مصنعي by the corrective ويان so جدا this is not going no that much of مقدار ما يلانيو marka maxaa dhacay waa loo soo noqday probably haddaan deega fiirino degan joognaba aan fiirino ma jirin
جديدة هنا ميلها ده أنا قسم جديد weekly سأوجد الدمان دي week وهكذا so it's quite big so تيجي مسألة so marka maxaa dhacaya suuqa wuxuu u soo dhawaanayaa order blogii maxaa la dhahay wuxuu u soo dhawaanayaa order blogii ama uu taabanaya depends wuxuu u soo dhawaanayaa order blogii wuu tadgareynayaa soo wajid u dhaqaaqa suuqa dhaqaaqaas waxaa samayn kara qof ama dad oo lacag haysto oo lotaysi waaweyn ku galayo kontraati isdabjoog ah ka galayo so these are not small shift so markay institutionada they know these are not you and me so meeshan waxaa ku jiro 100 million so they want to get money qof wuxuu gaarsanaa inta ka badan so marka maxaa dhacayo waa la soo noqonayaa so probably a bigger fish wants to eat this okay waa la soo noqonayaa so waayo marka qofkan markii bayan la aadayo ma galaya kaliya hedgeka institutionka they will protect themselves for sure laakiin iyaga ma waxa galaya kaliya waxa galaya abka iyo trailer anagoo dhana ka bixin baya dalka so hadduu qofka hunguri weyneen uu iska yahay anaga camal baabaraqiis intaasba oo ka heli karaa xoogaha yaroo fiican uu ilaahay ku sug laakiin the institution iyo maxaa la hedge iyo waa lagu hunguri weyn so marka xaqiiqa marka meelaan joogina isprotect garayaan so marka aragti marka way soo noqonayso maaha lacagta maxaa meeshan ka dhacay markii la yimaado supply-gan iyo reaction laga baxay so they try to protect but they cannot protect it because this is a bigger fish so marka suuqa wuxuu ku soo noqonayaan damaandiga laga tagay okay intana maxaa ka dhacaya the same thing samjid intana uu soo taabtay so dad groupkan selka u soo galayna group kale bay u galaya institution iyo hedge iyo waxa la dhahaa BFI مثلا IBF or something like that waa institution hedge iyo fund iga kala weyn marka kana maxaa lagu sameynaa marka isagana waa lagu noqday waa la qaransaday so labadii dhinacba waa laga qaransaday so kan markuu range ku jiro marka kalena waa hal meel laga qaransanaya so ma hadii inta la qafaa in kan in la qaransado yaa waa la qaransanaya because suuqa waa bay laakiin ma ina dhahdid okay liquid kan waa qaada kan waxa hadii mid lagu qaado adiga aad ogtahay hadii inta lacagta aysan imaanin demandiga hadaba ordin wait maybe that day ma helaysid like this demand is still valid why we unmitigated nobody mitigated it the same thing happens here so kana la qaramsana sa ujeedid hadana inta maxaa ujeednaa this whole range ujeedido reaction laga baxshay somjeed why into soo galay we gaanito they try to push it back but laga awood badan so waa la qaramsan so suuqa pull back soo sameeyay and then we'll see so why this supply as well waa dada jooga asagana protect gareysanayo so they reacting as well like waa ka awood badan yihiin kuwan so reaction kooda waa ka weyn yahay marka the more supply reaction kiisa weyn yahay the bigger is that is part of the total so marka wala reaction kiisa weynaaday xogaa fiican waa dad tahay maxaa dhahay fabraqis wala tria dadkeena oo iska shaqeysada fabraqiskan uu waxa something because that's more than enough لكن ده مر ميلاد كسو جلي structure كانوا في ناس عليا من ميلان كسو تتبع الله يقرأ صحيح so that institution كيدنا so let's see again ما كان كده عليه بمجال ولا best من ده طبعا كده عليه ده في ريسيت ولو تي دبل كده عليه in the midwire متقالين in the wire so نجي so دي marka inta tirin lacagta way baxday waxaan dhacay waa lagu soo noqday so tii inducement goonjada waa lagu qaransaday ana inducement iyadan ahayd waa lagu qaransaday
luqadan meeshaan kusoo dhinac order blog meelaha laga xirtay waa lasii dhaqaa ta waxay ahayd timekii oo waagii oo ay jirtay corona 2020 and then it happens all the time hadduu ama structural ama waa inducement waxayna ka dhacaan supplyada iyo demandiyada agaalahooda taas waa lagu leeyahay markii supplygaga ama demandgaga lagu imaado sug in liquidity la qaado otherwise you will become the liquidity this is the same thing ujeedaan meesha tan kaneeto uu soo dhacay la qaaday toosaa loo baxay marka maahan dabaleedana tanna waa the same thing so you have to supplyga maysan soo taabanin way soo noqotay marba haddaa arkin supplygaas soo taabanin supplygaas waa lagu soo noqonaya like as I trained anaga waxaa rabaa 4 hourkii aa base noo ah 15 minutes geeyo ku yahay so maxaa dhahay tii aad ku kala kalaysan lacag so waxaa laga yaabaa marba haddii kaas lagu imaanay intii meeshaas oo ku mashquulsanta inaad hilmaamtid ba in this is still inactive hadda just let's cut I don't know the meeshan waxaa u malaynaa 2019 15 minutes ma tegi karin like 4 hours kan tegi karaa maybe 1 hour let's try okay so haddaan marka kan 1 hour kan geey okay good it's better than nothing so mujedi so markii kan laga soo tago adiga waxa waaye boosaskaagan 15 minutes ku xisaabtanya so meeshan boosa ka dhacay so mujeda meeshan boosa ka dhacay horta kuu joogaa ka dhacay yeah and then boss is choke is wato waaye laakiin extremekii oo chokaa lagu noqday so mujedi meeshadana lagu soo noqday adiga wixii baa kula socotaa daacadana inta mid kale ka dhacay boos kale ka dhacay waa lagu soo noqday order blog lagu deal taabtay yes waa la taabtay haddana waxaas so you already busy meelaha wax ka cuntid so you will forget definitely in meeshan inducement ka dhac so marka aniga inducement ka higher time frame waxaan ka jeclahay midda 15 minutes 5 minutes ka dhac waayo taas waa midda aniga supply-gayga iyo demandgayga maxaa dhahaa interjada ka qaadana so the 15 minutes kan ku mashquulaya like this big fish you don't ku mashquulaysid it's easier inaad ku mashquulsid min meelaha ku jirto tan camal hada fiiri tan camal waa laga yaaba inaad dareentid waayo is your time frame aday ku shaqaysanaysid inta waa kana demandgii kan kiino soo taabtay kan xasuudaysa in lagu noqdo meelaan joog waxaa ku xisaabinaysaa soo kan inducement uu noqday joogii mujidin joog markuu dhacay ma iman extreme meesha nadiif waa so joog markuu dhaco hadduu yahay liquidity meeting extreme ka la tagaa so double top camal noqona hadduu yahayna nadiif sign extreme ka tagaa like hadduu yahay nadiif and then maybe the chisena and the nadiif kale maybe markaas the chisena arkin ka soo noqdaan so kan waa nadiif extreme gas loo tagaa so kan waa inducement kan waa dareemay marka waxa sleeda so kan hal uma soo xadbido markaas dareentid inuu ku dhaqaaqin si fiican wax ina qadayso ama break even keenso ama waxa ka kala xiro adeeg u jirta قبيبس وعندنا حساب from here to here oh 14 pips is not really that much so it's something you will feel so dan ku noqono marka 4 hour keni that's not what inducement okay it happens waa structure kii hal jeer ah marka waxa waaye waa bigger fish structure kan waa annaga waxa ka buuxayo kan inducement kan waa bigger fish who tries to move the market so they will definitely make money because waxay kala xiranayaan it's not like they will lose but lakin kii ay kasoo partireen u furayaan laga yaabaa kaas ama asaga u furnayn dad soo galay la qarabso so yeah
marka hadda maxaynu niri liquidityda waxay ahaayeen maybe inaan meelahan kusoo barto okay waxaan isku dayaa inaan meelahan kusoo barto saa markasta kusoo noqdo so hadda waxaan soo sameynay midii ahayd structure right right haddana maxaan kaloo sameynay waxaan sameynay tii ahayd inducementka let's do like this meeshaas waa order bloggaagi intay kasoo noqonaa order bloggaaga lagu noqonaa haddana waa sii bixinaa okay intu waa marka damaandigaaga adiga maxaa supplygaagi meeshaas waaye soo lama soo taaban ama afka loo tegay so kan saasuu noqon karaa saasuu noqon karaa saasuu noqon karaa meeshuu ka noqdo so hadda labadaasaan sameyn waxaa noo haray liquidity tii gaabka ahayd oo ah saan camal inta u dhacdo iyadoo nadiif ah no inay saan camal u dhacdo and you have meeshaan demand ama supply range supply hadda waxaas dhan nadiif waaye so markii lasoo noqdo hadduu meeshaan nadiif yahay inkaas la qaado haddana sii socdo oo inta kugu noqoto I think I have the gap liquidity box I think I have it yes meeshaas waa nadiif so kan inuu noqdo liquidity haddii uu meeshaas yeeta buuxdana waa midka la yiraahdo asagana liquidity poolka oo wax kale ahayn kan meeshaan inta dhan buuxdo so waa dishinti jaran ama ashilin jaran ani jaha soo jahada kan ugu dhacaya aniga mentalityda seller ah mar suuqa marku baa aadana la arki doonaa hadda inferta bisamay mar walba suuqa because it's easier for me to see so something like that lama la qarmsanaa ama suuqa koradu ku socdana ku soo socnaa hadii kale continuation bisu socnaa okay so this is liquidity pool this is structural and this is inducement so marka kaniyada aan soo fiirinayna kan oo liquidity gap done 15 minutes is better maybe nothing no? Let's see let's see السوق it doesn't happen that often because in سوق نظيف يعني مرة it's very difficult to see maybe this one like it's not نظيف معها كورلا نظيف كده let me see if I see something I don't know if this is actually a perfect example, but it can be an example. In تعمل هذا سوق محوسمي it doesn't happen often. So هذا سوق محوسمي or it happens when you don't see it as it is. And سوق محوسمي سوق أسأل هنجز محو جدنا وحو كجرا هرتو pull back like هو buy سمع buy وكجرا السوق مرة محوسمي si nadiifu ku tagay okay so suuqa waxay ahayd in demandiganito inta ku yaalo in laga trade gareeya ahayd soma demandigan meeshan ku yaalo in laga trade gareeyo why because waadkii ugu dambeeyay
كان soo mitigate garayso kan in laga tagay ahayd so maxaa dhacay marka waxaa dhacay meesha nadiif waa there is no liquidity whatsoever so meesha waxaa ku jirto liquidity gap so marka muxuu kugu sameynaa suuqa adi waxaa laga yaabaa inaad dhahan okay meeshaan waan ka sugaa inuu iga qaado marka liquidity lama haysta ahayn kan so kiyu qaada marka instead of inuu suuq intuu soo noqdo uu meeshaan reaction ka bixiyo uu sii bixi lahaa kanuu cuna meeshaas waa meesha keliya uu cuni karo waayo waa almost zero meesha wax badan ma aha so they eat that and then they continue buying suuq jahadiisa ma bedelanin it's just liquidity da khura waayo wax kale meelaha ku cuni male okay so I think it happens as حتى inducement ahaan it happens markuu nadiif yahay حتى badanaa like inducement anyway nadiif iyo bsaqdu waa this waa jihada kale reversal let's see if we see something mara jihada saltaha rabaa inuu markaas dhinaca oo kiisa kala cuno dubaayana kii baayana noqon okay meelaha oo pullback-yada ka dhacay impulsive-ka iyo maybe later in lagu sameeyo so this is queen laakiin this queen انتهينا مع الحوار كان في هذا أي تساوي معنا because one beef as well that's what key had I to say connecting is the same thing so I'm just measuring liquidity graph كجرت من هذا الحوار demand ولا أكثر مري لكن جهة أو the opposite ahead so anyway in the current scenario chance was high because this was had liquidity قاعدة so من جد all the liquidity قاعدة you know إن هاي قاعدة على قاعدة that's what happened here is clean it's not really that much of clean بس إنسان بفجأة لكن تحت وانا دي كده حتى inducement somehow هذا ولا وين عبر لكن I can't see it right now so هذا السوق أيامي قدام بينا إحنا كل جري daily إحنا كل جري sell on non stop سنة كانت ودن it happened no I can't see this one let's go back الرئيس كده وقت مقابل screen like it's not really that much of green if you go to lower time frame maybe this one no like demanding لما هو سماري this one maybe this one inkastoo inta uu ku leeyahay waa liquidity dan oo kan buy uu ku cunayo لكن if you think that as a high time frame ahaan meeshan waa eber low time frame waa waxbaa ku jira for sure structure waa like waa eber so waa la qaaday like suuqa soo ma jeedin for sure buy u adeegta laakiin tan waxa waaye waxa waaye bilah ku roon yahay waatana soo jeed so suuqan muxuu sameeyey inta meeshan dhan waa nadiif soo ma jeed waa nadiif hadii waxaas leedahay يوصل نقولها هذا قارن تنسونجي sometimes not that much like وانا قارن سنة أنا نسوق بايو سوق شيء صعب أنت حتى ولو سنة the same thing أنت نظيف سواء كان عمرك في النقد اللي بديت structure على قدر سنة توصفوا لي مثل كبر
here to لكن كمان the other side رمو هدو السلية حرام لنا عسل كيقولها هدو بالي هنا نلعب بعدين this is not clean this is not clean فنجي الحباب كجرو so it's not clean لكن لما كان this is clean جدا لكن هو some sort of a messy zone هاي كان رادس كيساب كجرو نقضي انت حتى حقا وحبول لي so it's not really clean that much of a clean يعني تو it's clean لكن ما نقاعد كده this clean ما نقاعد لكن reversal اسكو بدلي so واحد زون reversal ما نقاعد لكن سلكيس كل مسقني كانت نظيف this clean لكن كم قاعد نقدر ولا قاعد سو structure قاعد ذاك واحد نتكلم مثلا lower than frame you will see better this clean not really that much clean لكن ما قاعد أقول بحي this is the same thing لكن انت أنا نظيف أهم so لكن this part is clean ما قاعدة ولا شيء علي not really that much clean this is clean no not really inside bar or your host you can't see one نظيف maybe this one no structure into this one for sure when do you get the point? It doesn't happen that often because in سوق نظيف يا rare. So you get the point. The point وحويان دي maybe lifetime markaan ku jirto arkaysa ayaa mar dhaweeday January meelahaas aad u dhici jirta I think it's this zone January December January this zone it happened often because why as liquidity ever naga dhigtay it was very interesting لكن liquidity waxay ahayd non-stop so the whole concept maxaa waaye marka duu suuqa nadiif yahay in rangeganeeto laga dhigto liquidity hadhowna supplyga ka koreeya loo yimaado suuqa u sii socdo islan ma ku dhigi kari just continuation meel laga yaabo inuu hataa reversal ahaan u dhaco laakiin reversal ahaan hadduu dhaco waas wuxuu kugu noqonayaa some sort of a choke ama change of trend so you don't consider as a liquidity gap who cares marba hadduu liquidity qaadayo liquidity kor kuu soo qaado marka in dhinac kala qaadaya waa iska ogtahay so you don't consider that actually as a لكن it can happen saas ahaan sameeyo this is clean demanding ama laga taqlusay لكن not really demanding at the end anyway taas waa midii saddexaad so it happens this time so haddaa arkan inay nadiif tahay macnaheed maaha inuu supplygaasiita uusan ka dhaqaaqi karin but you know meeshan nadiif waay so at least wait inuu inta ka dhaco oo structural ah markaas okay nafaan hadduu inta ka dhaco structural laakiin mana dhigi kartidoo dhowr jeer ay dhacday meesha intuu structural ka sameeyo hadhuuna waxa dhan isku qaadaya like you know hadduu structural dhaco intii haddii kor loo qaado in hoosna hoosoo qaadanayso inuu cultivation kaa kuu sameynaa so structure helps you to understand okay suuqaan soo kala fariinaya hataa hadduu continuation yahay you know this is going to happen instead of coming back it will continue up like that kor al qaado hoos al qaado marka sii soconay so those are the most markaad waxaan tusayaa kan this is dadkeena market structure kasoo shaqeeya waa easy waa 90% maybe
maybe you should focus on that as well. Okay, it happens all the time. So look at this. waxaan la guurituwa markay baaga ahayd waa qurxaneed waayo order flow waa jira you know kan kama hoos maraayo beautiful kan hadii laga hoos maray just because wuxuu aan liquidity kor hoos laga qaaday continuation ah wuna yaryahay soo ma jidda waxa lagu kasay waxa uu ka yaryihiin boosaska kala badan continuation suuqa ma meesha dhan waa buuxa marka suuqa muxuu sameeyay waa lagu soo kala firiyay sidaasaan lagu cunay okay marka 90% rulka lagu sheego waa saas waa liquiditydaas inta la cunayo waa so it's very maxaa la dhahay important marka qaarkood xoog ku bilo markii aad badan tahay liquidity meesha ku jirto xooga lagu dirta it doesn't do flip inta uu korayso sameeyna like inta hoos ma sameeyna hal mar duu soo dhaqaaqo that's it because hadii uu meelaan ku noqdo waxaad qofku xirana wixiisa marabaan waqtihan maray rabaan within few hours in lagu taqoon qofkii halayo inuu xeed iska joogo iska raaxaysan dhow shuuq lacag socod ma sha Allah wuxuu ku sameeyna lacag iska fikra so inta xataa way ka dhacday Soomaaliya waa meel kasta oo ascending channel ama Steve like waxaas ka dhacaan so flip uu dambeeyay waa kan ama vuf it happens all the time. This is very common. Waana badana 1 2 3 touch iyo da aragtid oo show liquidity ka dambeeyay. Tan waa soo very very aggressive. Tawaaba liquidity ba percent. So ina kana shaqada ka jiro. Very tanito. That's why I'm mentioning more about Udorta in Katusu. Why this is one of the rare cases where ascending channel is descending channel behind. عادين هندو ascending channel or descending channel على محل impulsive على هندو محل لها ascending channel is descending channel is very rare as a thing. من رحنا ده كان ده بدل ما في سيف جروين وهدو أنت كان نقدي أدي مثلا أكسر بشيء ماشي أكسر بشيء اللي رأسنا نجيب بحشي you're safe somehow because at least you should be هدي لك كوسي جدا نقول لك الفريد هدي أنا خلص كذا كان at least بريكي من كيسو so ascending channel is descending channel يعني so this is as well itself noqon kara meel uu ku baxo so kan camal marka wuxuu u badan yahay inuu markaas u badan baayaado waxana isku noqdaan ascending channel like in this case one of rare case it doesn't happen often عملنا أو لسه قدام بزماش سكيلو كنا for our time frame so this is the same thing لكن كان يد continuation أهان قيبتها معنا I was actually I was actually expecting in the top. I guess market structure could leave or could you I'm not sure. أنا ماشي استجان سوي عليه ما تجي. كورك صوتات. حلنا في هاي وجدا. This whole thing is actually جنا. سوق صار عفير. انت الى انت this point الى يو this point it take 61 days right 61 دقيقة for 56 days انت الى يو عندنا سوق حقوق عطي 21 days so 20 ملي انت to 30 days. So معناه waxa weeyaan half of waqtiga uu qaatay inuu kan korso aad halfkiisa ku qaatay inuu salkaas ku dhameystiro. It's a big fish stuff. So 1 2 3 meesha 1 2 3 so 90% rulkiisa imaanaya 90% dadka market structure soo marnay waxa waaye markuu saan u dhaco trend line
waxay sugaan oo lasoo oo flag waxsan waxay sugaan inuu imaado meeshu kasoo bilowday so 90% rulkiis taas waay marba hadduu intu soo bax flag wax kuu samaysto you know inuu tegi doono 90% waxa waa 90% rule manaha 90% wuu soo buuxshaa there is that 10% intuu meelaha imaado uu kasii dhaqaaqaa sida dadkii hadda intuu say camal kan cunto what 10% of the time like 90% of the time wuu buuxshaa saasaan fahansan so this is liquidity poolka lagu sheegayo so meel walba oo ay liquidity saan uga buuxdo you know in soo buuxinayo look at this bulbaagyada dhan aan sameynaya waayo bulbaagyada waa Steve Flagana waa liquidity meenan wajida ida dhanaa waxay tahay liquidity meenan so that's idana liquidity poolka they labada neeto then they don't have direct maybe this one because you have to pay attention they can all qarmasana like this is a more like suuqa meeshu aadi doono camal so hataa meelahaas inta soo gashay heesa adaad ba joogtid demand or maybe and 4 hours a month demand daily iyo weekly isku jira meeshan yaalo suuqsaan kusoo socday you know suuqa zeto inuu tegi karo ilaa meesha uu korso liquidity la socnaa so hadaa meelahan intrication ka bixin heeso maybe inaa wax ka xiro qayb ka xiro profitka qayb uga xiro daarabtid laakiin keep it as much as you can on the same thing here qofkii meeshaas fiiri meeshan this was a beautiful entry actually beautiful entry waayo meeshan dhan structure so structure kaas ku samaysay waxay ku tagtay extremekii shooga markuu ugu dhacay shoogaan aan dhacay mujid shoogaan inta ka dhacay waxaa dhan extremekii ku tagay so structure kan inay kugu sameeyaan extremekii so qofkii meeshan kasoo qaatay sabab uu ilaa iyo hoostaas u haysanaynin ma jirto sabab hee uu ilaa iyo hoostaas u haysanaynin ma jirto 300 pips waliba asalka waa weyn yahan u dhiganay bas u dhigay asal caadi oo risk entry look at it 23 asagoo 16 pips ya asalkiis imagine that asal ku heshid meelahan lower time frame da wax ka heshid 5 pips ama break on you make money so that's mostly liquidity and qaybaheeda kala duwan qaydin inay labadana muhiim u ah oo labada aan ku xisaabtameyno especially tan this is like number 1 mar hadii supply demand lagu imaado suuq ama sameeyo lower time frame qasamaha that time frame lagu sameynayo so anada 15 minutes joogo waan suuqa waxa laga yaabaa 5 minutes kale xataa 15 minutes just week la noqoto that's enough for me you don't have to go crazy okay now let me show you here I just know how بالعبارة منه strange سوق أنا strange maybe this is no لكن that's مرة أخرى you have to see in 15 minutes you have to see in the 15 minutes لكن مرة قاركود بحد عضو إنه 15 minutes clear demand جاء active مركز الويمة clear أهان لكن ده اللور تايم فريم تبتدي wax ka dhacayaan then you know meeshaas chance waxa jira in kara hada tanfac amal fiiri liquidity u dambiso inducement kaasoo there's no other liquidity yani kasoo dhaqaaqo so zone kaas kasoo dhaqaaqo so zone kaas kasoo dhaqaaqo u diidaniin tana ugu dambiso meesha dhan buuxdo laakiin tana ugu dambiso liquidity ahaan intan waa nadiif samaan so intan maxaa ku jiro liquidity gap so you know suuqa in la qarmasanayo demandigan uu kasoo dhacaynin meeshan dhan si nadiif u tasamjid sabaa la qarmasanayo intaas tan naftageed waa nadiif laakiin way kasoo dhacaysa demandigan tan laakiin nadiif ahayd waa la cunay so kanay kugu timid so kanayto and I don't know if I can go to the lower time frame or July okay let's cut let's cut precisely here and then let's see 5 minutes
when it shows 1 minute. So the video mentions origin. So you see so amazing some minute like into kalai chogawa kana right demanding yani sameysa demanding yani kusoo noqday so intuu ka dhacay laakiin haddaan 15 minute joogo ma arkays demandiganeetana waa demand 15 minute so I can't see waa risk entry ahaan iyo waxaas amase inaan lower time frame saas u fiirisid hadii kale activate kan xataa fiirada meeshaneeto wuxuu tagay flipkaneeto kan waa pullback catalyst ayay dhahaan macnaheedu waxaa flip markuu dhaco oo demandiga u fail garoobo demandiga markuusan u fail garoobo oo uu dhaco maxaa la dhahay pullback catalyst so demandiga ugu horeeya meeshan waa sell to buy gaaseyto ay reaction kasoo bixisay waa la imaaday waa la xirtay waa la daatay haddaan marka inta tagnaa dabeere let's continue to that I don't want to see all that let's go to 1 minute directly so we did 15 minutes marka arkaysid laakiin 1 minute is filthy waxaanana ka maqan so marka you know adi marka demandiga lagu imaanay 1 minute ka 5 minute zonkas inaad tagtid arkid waxay karin waxaad teeli kartid 15 minutes waxaa laga yaabaa inaad aragtid kandalkana ka koreeya liquidity dhan la qaadadaas laakiin daad tagtid 1 minute is really perfect of liquidity so that's mostly waxaan rabay maanta inaan kala hadlo I hope videogan inaad wax badan ku kala fahanteen hadda waxaa idin yara furayaa xoogaha demand question and answers can I hear waxaan anfilay dhan aan xirno let's clean out the desk hadda markaan live ka baxo waa idin soo sawira afartan nooc liquidity so you can see it yourself and make back testing waa muhiim inaad back testing la gashido soo fiirisid aan ilaa hadda afartaas liquidity aqaana soo wixii aqaana waa idin qiimeeya dee wax kale soo arko waa idin la soo wadaagaya insha allah liquidity kusaabsan so qofkii rabo inuu su'aal wax weydiiyo microphone gacanta soo taagto insha allah waan u jawaabayaa we have 10 minutes camal farqiga nooca ayaa u dhexeeya boss iyo liquidity boss boss iyo liquidity boss maxaa la liquidity box ma kooda liquidity box waa box ma aha boss waa meel nadiif ah waa suuqan ahayn ashinta channel suuqsan usoo dhacay oo aan lagu noqdo demandigiisa so meesha waxa malay dad oo meelaha inta usoo kala galeen malay laakiin dad suuq oo kusoo baxay oo loo noqdo meesha waxba ka buux ma aha necessarily ashinta channel inuu noqdo laakiin inuu noqdo kaliya kugu filan inuu leeyahay wax ay soo cunaan that's ku hariyaan taas weeyaan inside barka is not something that complicated let's see 15 minutes inside bar so inside barka especially aniga markii aan demand li imaana inside barka kiisa xisaabsado waa range ku dhex jiro demandiga so haddii order block madowga waa the real maxaa dhahay order block laakiin anigana u dhigtaa waayo meeshaas waa ku dhex jiraa macnaheedu waa range hadduu ku dhex jira macnaheedu waxaa waaye naftiisa wuxuu kusii jiraa order block so kaas waa idin waxaa target gareynaysa so haddaa hal markad intuu imaado so ma jeedin the last clean order block wuxuu ku dhex jiraa inside bark waadkana so this is the last clean one like that kusoo noqono 15 minute ka inside barka is this whole thing so inside barka ana waxyaalaha u isticmaalo kaliya waxa weeyaan markay order block ii ima supply iyo demand zone ii imaado
in hadduu ku dhex jiro inside barka aan xooga saar in la ii imaado haddaan la ii imaan chance in lagu soo noqo suuqaasiisa hay hadda kan fiiri maxaa dhacay inside barka uu reaction ka baxshay laakiin inta reaction refinekiisa reaction kama bixinin refine 5 minutes oh no I can't 5 minutes inaan sameeyaa finan still ma uusan soo taaban so inuu inducement laftiisu bedelo so marka maxaan sugayaa waxaa laga yaabaa suuqan inuu soo noqdo oo uu yimaado kii ahaa ama uu toos u durdiriyo suuqa sel yahay ama se uu kan laftiis ka qaato uu sidaas ku baxo so that's the only way the only thing aan ka isticmaalo inside bark wax kaloo inside bark aan isticmaalo ma lahan aan ahayn supply iyo demand day ugu dhex jiraan iyaga focus ku saara inaan ku intaan kan weyn madowga dhan u dhigan lahaa inaan kaas u dhigto waayo hadafkayga supply iyo demand ay markii la iimaan waxaa waaye the smaller the supply and demand the better for me because stop loss kiga iya so hatta buu ku sameeyay chop still the same thing amaro waxa isku daysaa inuu kaaga sigiriya soo so that's waxa la horaa soo meel kale in ka tusaya so it gets you know why it happens no actually no maybe this one so let's cut so انت maxaa dhacay marka inta waxa weeyaan inside barkaas ku jiro so inside barkaas marka da 1 minute ka imaado maybe 5 minutes ka fiican because refine das minutes time frame kali ina so gudihiisa structure ku sii dhex jira Soomaa so structure kaas waa marka waxa loo socdo so marka waxa leedahay okay inside barkaas xooga saaraya so asagii ayaa kugu dhex jira order block so another order block is kan yar u dhigto ama weegan way wali uu qaado laakiin daan kan yar u dhigto wali soo taabtay inay way sameen waxyaalahaas inta ku fiirsha so it's not wax oo wax kale oo inside bar ku fiirsho haddana la joogo jirto انت wax kale kusoo qabaan insha Allah laakiin intaas waa it's more like you know supply and demand ina ku kala samaysan I think waxay dhacday 4 hour ka inta pullback hadirtan ku jiro pullback ka horeeyay 4 hour ka uu sameeyay not this one was amazing so mjidin suuqa kow ma uusan soo taaban soo mjidin so aniga wuxuu ii yaalay intuu ii yaalay ma uusan soo taaban kadib wuxuu sameeyay weegan noqdo because weeks always have to be included kadib wuxuu sameeyay suuqa wuu soo noqday reaction-ka laga bixiyay fiiri waa haddaan u xisaabto waa 100 bips so ilaa ii damaandigana lagu keenay the whole range because damaandiga kor lagu yimaado the whole range lagu yimaado so wax weyn ma ahayn wax because suuqa sal u ahaa laakiin maadaama aan imanin in lagu soo noqonayo waxay ahayd wasaan inta industry suuqa wuxuu ka dhaqaaqay kan inside barkaas uu ka dhaqaaqay ha ka dhaqaaqay laakiin inside barkaas ma jecel waxaan jeclahay kan order block ku dhex jiro markuu ka dhaqaaqay suuqa uu ku soo noqday meeshii laakiin waa just reaction uu bixiyay waa la sii dardaray so that's why I'm uga faa'iideysanay marka suuqan baagan ay 15 minutes therefore I'm going to down الحرة الإنسان بعد كان عمل I don't know I think هذا عليك هيدو structure بشيء أكتره 15 minutes about هذه when you see is all this structure أكتره حتجزون جدا وحنا ولا بكن نعم so you have to know marka inay saas waa marka wax loo raadinayo waayo astagiya wuxuu ku sii dhex jiraa order blog oo wax kala dhaqaajinaya ka sii dhex helay because waxa dhan mitigated waa waxa loo mitigated there is nothing nadiif ah
مرقة كسوق أصوب حين أو mitigated بديهم كسوق ممكن على الناس المهم ما مشيت لكن يكونوا قنصة indication وقوة عاونة مكان swing high swing low oh, it's very simple 15 minutes again okay اسكو سو أورورينو swing high محل هاي انت waxaa ka dhaca joog so swing high swing low ugu hore waa kan joog garida waa kan ugu yar badanaa waxaa dhacay inta joog soo qabo joog badan inta ka dhacay dejisna soo ka soo baxay so kii ugu horeeyay waa kana swing high inaan isku soo yaray qasbanahay si aan u wada arko laakiin haddaa fahmi weysid markaasaan tahay isku soo yaray dusan nadiif u meelaha camal hadda way adag tahay waayo waa 15 minute ama 1 hour range waayo markaas camal waa very difficult inaad aragtid swing high swing low wuxuu ka dhacayaa meel suuqa ka dhaqaaqayso waa trend weeyaan si fiican ugu arkay range-ga waa make no sense meeshan joogo okay so that's one thing maxaa dhacay marka waxaa dhacay swing high swing low ku xiga waa big one kan yariska dhacay ko that's the small one the first one waa kan yar and then kan waayo kii ugu dambeeyay oo blogga soo qaata waa kana ani lugta wax dadna waxay u dhigtaan inta camal waxay ku leeyihiin lugta wax jabiso ama lug aniga la ka dhigtaa the whole thing so it's question of time so can from this point to this point is the big one probably about 4 hours iyo wax isku dhex jira waan 4 hours iyo wax isku dhex jiro markaas camal waa impulsive weeyaan suuqa waxaan sameynaa 4 hours job so kana dhacay so aroorada pullback kasta oo adiga hadartan suuq waxa ku jirta volatility so I think sodom bips in yahay 15 minute pullback so adu 15 minute gaari wuxuu leeyahay pullback ninkan off bottom like أنا just waxaa isticmaalaa maskaxdeyda waxaan leeyahay okay this is a good pullback waxay ku ogaanaya kale inuu pullback yahay inuu 50% iga yimaadaan inuu 50% iga imaanin waa waxa waaye suuqa markuu uu saan sameynin instead of doing this you know instead of doing this haduu saan sameeyo uu sii dhaqaaqo macnaheedu waxa waa impulsive kan waa higher time frame is stronger that's why 15 minute markaas uu leheena chance uu kusoo noqdo ama se 4 hours uu soo noqdo waa daily impulsive so markaan waxaan sugayaa kan 50% min yimid yes so waa pullback kan 50% min yimid yes so then waa pullback masoo celin so kadana kan hadana in these situations waa liquidity bilaabanayso so dadka qaarkood ilaa inta u dhiganayaan dadka qaarkood ilaa xagga aniga mar hadda aan ku xasku noqonayn to me is liquidity so meel xagga u dhiganayaan so hadafkay ku xiga maxaa marka 50% dhigan yihiin this one yihiin so hadana kan ku xiga marka kan la dhiganaa hadda labadooda isku midaraaya so kuun madow waa high iyo lowga kana waa 50% high low 50% inta maxaa dhacay pullback so this become the new and swing high swing low kuwaan ku dhex jira waa lower high yar waa 5 minute ama 1 minute swing high swing low is impulsive kasto waxaa ku dhex jira swing high swing low or lower time frame okay that's the concept so probably can it's not only chop or 15 minutes why job 15 minutes into ka dhacay so actually this should be the one kan waa 4 hour that's why pullback u noqday because extreme 4 hour hada 4 hour ku geeyo
you see showcased pullback wuxuu noqday because weliba daily ku jira xataa ki daily so waa jogyadii 15 minutes iyo 4 hour daily waa la qaaday iyadoo loo noqon midna marka waxaa mar extreme ku noqonaya so marka haddaan kusii soconno 15 minutes kana keen aniga waxaan iska kee bedelayaa dhinaciga madax waayo hal concept waxa weeyaan mar walba inaan ku xisaabtamo what I want so kaniyadu noqonaya right وكان دول نقطة مركان كان كلام حين نغنيها وحين نغنيها from here to here from here to here هذا روح إلى حبيرسن so from here to here اللي هو كل بقيس و 15 minutes 4 hours كل حاجة وحواس كل حاجة ماشان هاي بتاعنا حكي وياه from here to here هذا بعد عدنا ما قاعد يدعي so from here to here هي هو waxaan ka hadlayaa soo jeed kan waxa laga sugaa inuu pullback sameeyo 50% qiimo ma uusan sameynin wuu si dhaqaaqay because impulsive kana wuxuu yahay impulsive higher time from this car I can show you markas amal 4 hour 15 minutes waqti buuleeso ee ku neefsato pullback fi am soo jeed the whole impulsive is hada daily and separate the whole impulsive is daily it will continue so that's why also 15 minutes usoo noqonayn hadda aragtay marka suuqii 15 minutes intuu soo dhaco intuu wax saac camal sameeyo uu sii socdo think this is a higher time frame so it's all one okay 15 minutes why it's not all one because they're two different oo kan hadda wuxuu ku soo aadayaa 50% iga camal hadda taan fiilna kan 15 minutes actually so 15 minutes kaniyad hadhow wuxuu ku soo aadayaa actually this one 50% ku soo aadayaa so hada ku sii dhaqaaqay probably one daily so daily haduu sameeyo the whole daily ما administration see daily مشغول I don't know if I'm myself they can it's very complicated sometimes too okay daily until I enter myself الوصول على المركة okay this one is the whole daily one can إلا أي كان هو معنى liquidity so 50% تيجي زنتون نقنا وفي النقنا كيف 15 minutes كلو ويستعجل 15 minutes كده عندها 50% وكذا هذا يا this one وفي النقطة order block هادو وديلي أما 4 hour كترين كرينا يعني but that's more complicated and then نكون مشغولين this one this impulsive is a daily impulsive هذا 4 hour كتماندي 4 hour كimpulsive كيسا it was from this actually look at it look at daily حلنا daily this to this this to this it's too big because it should be this but it didn't happen why because daily أحلى وضع مركز عنا 4 hour يعني كنا في صدمنا ما سعنا له صلاة لو كل قرش جديد مركو لك بلبك وكوسو سمي 50% القيمة do you know صلاة تو إيسو قرقرة سؤالك هذا قد أنا هديك الموسك صحيحنا بس تدير actually maybe إن شاء الله we cannot أردتها لكن maybe week no choke no yes we choke أما week أما body لبضوا هدو مت دعو أديك شو كويا
laakiin duu booska waa inuu boodiga jabiyaa joggan wuxuu kugu filan inuu week jabiyo ku noqdo because duu week sameeyo uu ku noqdo macnaheed waxa waa pullback uu jac ku jira uu kusoo qaadan lahaa order block. That's the difference. السؤال كده بقطع صغرى 5 minutes and then أشرح هنا بس عد كده إدالي. Okay. Okay, نكمل. I hope in فيديوهاش يكونوا نقطة أو يوتيوب كسوري بدي ما هدي شوقي وحسب وكوباركيسن دوايو حاليا مركي كود مركي في سنة سوح منه كو أسبوعين أما كل كوي هذا ده فيرسي اللي جواب من أول قصة إحنا وفيرنين وما لف ممكن ما تكون مركي فيرني سيد واحد أنا أشوف حتى السلفان لكن أدو عسلفها مسكين وحاردني سديتس أنا جاي وكام مقنع عنا كيش so نقطة forex not easy so هذا قف قفان give up greening اللي أحكي هاي قف عقل بدون نبار قف حريف نمو وحاطرة لكن من النمذا نمو ولما نسين نقح التبطيل بعد أن بود الشنكر إن لقد لابتوب تايم فريم كين أهلا وحكار انتي time frame كستو بحولي pullback ديسا so you have to know which time أنا دان جو أنا pullback يدا 4 hour واجع لها because pullback يدا 4 hour كان ماشي أنا رينجي نرجع لها 4 hour كنا وحنا كهنا رينجي جو 15 minutes وعدت مير واي وروحنا غلط عم نقول راقة سوق وح في عن كسينا لكن رينجي أو pullback أو 4 hour for example هذا كان فيري passive كان 4 hour this is a 4 hour pullback and I remember this is a good 15 minute محل هاي passive pullback أو extreme مرة بالويمة this is a 4 hour pullback كانت وكسر نقطة probably 50% أو مليانة مو واحد عنده 50% دقيقة I think كان حاكو جرو daily so أنت ده اللي قلنا 50% متيجي سمين كيف ودرسن لكن أنت الرسم الديلي حاكو جرو this one 50% ديسة هي اللي متيجي سؤالي مركب ما إحنا قاعدين محاويين time frame كنقول باقي يسوي حسابنا it's very simple 15 minutes قدام هجيرو وصبلاي إذا demanding 15 minutes وحرارة pull back هنا وقاعد شو for example أنا هير okay 15 minutes كان سواء واحد مركز سوق عادينا for example هذا فيري أنت ما حكى بوس okay both more the second thing I am thinking how I this one so on the blog انت يجي جيران مرك oo pullback ganeeto inaan uu sameysay maxay tusay suuqa meeshan order block oo ayaa ku jiro oo markuu uu soo gaaray suuqa soo pullback u sameeyo ama soo impulsion mar walba waa inuu jira supply madamaan soo bushkareena krisid kama soo noqon ma dhaca kama soo noqon ما يبي ما قرق السكنة ذا كوجرة كسر نقول هذه هذا وجيد just give you an example لو هو إنه جينا واحد مرة بسوي عليه so بس كده بعيد عارف 50% تيجي بعدك ما حاسة مين يا بس واحد المكتب ما كان واحد بالله غير نسي على هذا أوكي order block نروح يجوا this one and this one I have this two and they all both valid كان هذا لقى رقعة على السوق تمام سوق هذا قاعد لكن مركز دم حسمي هو كسر نقدي كي إكستريم هو كسر نقدي وأنا كذا قاعد نسعى so they all valid كان يعني فيديو قصة سميها مر because it's very interesting أيام أنا استادي كوري سوقه مركو impulsive دعوة وبول باك دعوة impulsive صار دعوة أو pull back دعوة
wuxuu sameynayaa marka suuq suuq markuu saan u sameeyo okay pullback sameynaya wuxuu taabanayaa meel walba oo unmitigated supply iyo demand before impulsive kala bilaabanin marka ugu dambeyntii wuxuu ka tagaa hal iyo labo laakiin tobaniyo soo xiraa qaar uu durduriyo iyo qaar uu ka socdo marka wuxuu sameynayaa intuu ka bixinaa reaction intuu tagay hadaan usoo noqonaya intuu reaction ka bixinaa waxaa laga yaabaa mid intuu ku jiro ka baxaa intuu ka bixinaa intuu tagaa haddana intuu tagaa marka dambe uu dhaqaaqa marka maxaa laga yaabaa inuu kasoo tagay waxaa laga inuu kasoo tagay kan asa iyo kan marka maxaa dhacayo kuwaaneeto oo baya sablaayadii kan waa mid furan kan waa mid furan sooma so waa la dardara marka iyaga camal ama intii reaction yar laga bixiyo filbaha loo qaadanayo kan waa la mitigad garaynaya kan waa la mitigad garaynaya kan waa la mitigad video ina marka soo sameeya waayo because this is very interesting haddaa fahantaan waxaad ku kala fahmaysaan haddii uu structurekaas soo dhamaystay shaqadiisa oo wax kale wax u har ay yaryihiin markaas inuu impulsive ka qaato ay fududaanayso so haddaan just to give you an example here suuqa muxuu sameeyey reactionkan uu ka bixiyay inta waayo kii ugu horreeyey waaye kanuu ku noqday haddana wuu soo noqday intuu haddana reactionkan haddana ka bixiyey kan inducement u noqday haddana wuu baxay haddana wuxuu tegay maybe kanito order bloggan extremekiisu tegay so kana marka wuxuu noqonayaa inducement kana wuxuu noqonayaa inducement haddana wuxuu sameeyey suuqu soo dhacay markuu soo dhacay haddana kanuu ka bixiyay reaction haddana order blog intuu kasoo bixiyay reaction ma tegin order blog hadhow waa lagu noqonaa haddana maxaa dhahay kan markuu furan yahay kanuu reaction kasoo bixiyey maxaa la dhahay salto baagan intaa reaction laga bixiyey haddana kanuu noqday haddana wuu soo noqday kanuu reaction ka bixiyey haddana wuu baxay kanuu reaction ka bixiyey soo jeed mid kasta waa la taabanaa mid kasta meel lagu soo ogaanaa kan waa lasoo taabtay kan reaction laga soo bixiyey kan waa laga soo trade gareeyey kan hoosuu tegey kii hadaaye uu tegey so wuxuu noqonayaa kan wuxuu noqonayaa inducement haddana wuu noqday meelahan wax ku jiro oo lower time frame uu kasoo baxshay haddana wuu soo noqday intuu yimid kanuu ka bixiyay reaction kuwaan waa already mitigated iyaga is mitigate gareey kuwaan soo jeedi iyaga already soo mitigate gareey haddana kanuu yimid kii u hooseeyuu yimid haddana wuu baxay kanuu af u saaray mooga hadduu soo taabtay hadduu soo taabana haddaa lasoo taabana udhaweeradaan reaction ka bixiyey reactionkuu ka bixiyey intuu sababta u bixiyey maxay tahay because meeshaan for sure waxaa ku jiro supply oo lower time frame for sure waxaa ku jiro reaction ka bixiyey kiiwa kasoo bixiyey haddana kan uu kasoo bixinayaan haddii haddana suuqa maxaa dhici karaa marka haddana inuu korkaas ku noqdo korkaas kusoo sameeyo ama uu jibiyo waayo waa bullish so pullback waa behind so if you see marka there is nothing left here nothing the only meelihii har waxa waaye kan ma soo taabto kan ma soo taaban so waa loo soo socdaa so waxaan dhan waa ujeedaa waa la soo wada buuxshay kii ugu yaraa kartaa waa la soo wada buuxshay maxaa haray marka waxaa haray hadeertaan waxaa haray kan hadda kan ka dhaqaaqay right waxaa haray kan iyo waxaa haray kan iyo kii aan la soo taaban intaas ah so intaasuu marka suuqa wuxuu ka samayn karaa reaction boom 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 sad camal buu sameynaa waa ku dhaqaaqay amase hadduu saan baay ku aadayo kan waa the last one kan waxaa laga inaan loo soo noqonin intuu kan bixiyo reaction bixiyo kaas tago soo ka noqdo sii baxo kan loo soo noqon laakiin this is great isbuucan impulsive kala dhacay waraalarka meeshan inta taab iska dhaqa haduusan lahayn
yaa laga yaaba inuu reversion soo sameeyo uusan soo aado laakiin maadaama uu demandigana uu ahaa kii 4 hour dan ku noqdo maybe let's put it now 4 hour dan ku noqdo so 4 hour uu soo sameeyo 4 hour check wada laakiin change of trending is saxda aniga waa dookan EGBI aynu soo qaadanayno soo socdo which can happen why you have why extreme kan lama tagin so kan waxa u furan 4 hour ka inaan haysto 4 hour ka furan kan iyo waxa furan kan waa actually soo tiri inaan tagin jiray may ikana furan isku dardarka kaniyadu wuxuu kasoo mitigay jiray kaasi yar kaniyadana maxaa lahaa extreme kan kasoo mitigay jiray kaniyadana hada kan uu ka mitigay jiraynayaa so waxa ii furan marka hadda kan iyo kan marka inuu ii soo noqdo oo uu labadan ku daro isbuucan way dhici kartaa and then uu ii baxo laakiin impulsive baa dhacaya meesha u dhaco waayo u dhaca masala u dhaco impulsive baa dhacaya waayo meeshan there is nothing left here it's clean as hadda dhasho soo dhaqay loo soo kuya xanuun nadiif u yahay waxa haray waa waxyaalaha dhow ee reaction ka bixina ama inaad biopsy aado ama sal inuu xtasal ku soo aado meeshan soo taabto kan inducement noqdo right inuu inducement noqdo uu meeshan soo taabto uu si fiican marka deetaan uu sal igu aado that can happen as well sama وإيتا الأخوان ويكون وان التجازي اللي متغاو أما حد أنا تجا أما نوصل نقولنا إن شاء الله فيوتشر الناس زمان شغلاي ولا عمل فريد إسبارة ولا عقل لطفا فريد وشفت يا مش هذا الموضوع يجوم هذا مرة بقى أدمن إسبارة لأتمان دانا فكر أوكي this is supply من زمان كجعل لسك كفنا بك أحباب so that's the concept like إن شاء الله فينا مركز ولا سمين دنا مركز يفعل نكتب وفهم هي ماشي ودقائق يسوق دقائق هذا حسب كثام will be the best I'm not sure we will see so that's mostly حن كوضع هذا المانتي and I hope إن اللي كودي كذا عشان الفيديو كان هذا بتاع إن شاء الله ونضيفين دونا كده بنحكيين دونا يوتيوب كا وإنه إنتاس هذا ما سنتين وبالله التوفيق hope إنه راح كتب دوي وبالله التوفيق السلام عليكم